si weyn waxaa warbaahinta baraha bulshada u qabsaday sawirkan ay wada galeen madaxweyne biixi wasiirkiisa dakhliga iyo wasiirada arrimaha dibadda maaliyadda iyo kalluumaysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya. baraha Facebook iyo Twitter waxay la circirayaan aragtiyaha bulshadu ka kala dhiibanayso siba shacab weynaha Soomaaliland. aragtiyahaasi oo xiisa gaar ah xambaarsan intaynaan gudagelin aan ku noqono dambaaladii adadka ee Colonel Biixi sida joogtada ah madaxda Soomaaliya ugu diri jiray cadawgii uu ku sheegi jiray iyo ama kaagii uu arkayay cidii la kulanta mas'uuliyiinta Soomaaliya. waxa tagay gudoomiye xisbiga oo maana weey nagala mutashan telefoon lahay waxay ugu cusub وانا أهله بان أنت بلوغ دب الإسرائيل كارتاس سيء يجلس عتيتونا أما كان من الوقت حتى ما أنا وين البحر سوى فرماتنا جمع أما كان من الوقت ما أذكر والله أقدر ما أكتب وسيد تاسنا تسان كيري والمسلمين لقينا سوداتين كجراي سوبرمي وحول قابل عين ما تيجي واحد عين رجاي لهني من البحر قريب نكسر إلى غيرنا فليوك العماينه دمرعينه ودنا عديسو عدودنا ومقنواي وكايتاد والله dadyowga ka falceliyay oo isugu jira mas'uuliyiin iyo dad rayidaba ayaa waxaanu ka soo qaadan doonaa qaar ka mid ah falcelinahoodii qoraa Khadar Cabdi Cabdilaahi oo reer Hargeysa ah waxa uu ogaa iyadoo dadka rayidka lagu xirxiro hadii ay madaxda Soomaaliya la kulmaan ama sawir la galaan qoraagu wuxuu sawirkan ka yidhi madaxda Somaliland oo xabsiga hortiisa ku ciyaaraysa Idris Cabdi Qaadir oo isna reer Burca ahi waxa uu kaga dareen celiyay sawirkan qoraalkana uu bartiisa Facebook ku qoray kaasi oo oranaya isma oran madaxweyne Biixi ayaa wasiir Cawad hortiisa gin xidhiidhka ugu jaraya Cabdixakiin Cilmi oo isna kamida siyaasiyiinta da'da yar ee Hargeysa ku nool waxa uu bartiisa Facebook ku qoray hadal uu kula hadlayo taageerayaasha madaxweyne Biixi hadalkaasi oo u dhignaa maanta sawirka madaxweyne Biixi aqbala waa kuwan ku shalay cadawga leeynagu sheegayay maanta se waa walaalaheen Sucaad Dawaare oo kamid ah aqoon-yahaniinta Somaliland kuna nool magaalada Ceerigaabo xilligan ayaa iyana waxay barteeda Facebook ku qortay awalba Soomaali weyn baa tahay caymay ahayn hadeerna maaha weligeedna ma noqonayso Ahmed Bile oo isna reer Berbera ah waxa uu sawirkan kaga dareen celiyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waa mahadsan yihiin mar haday korneeladii hawshoodii inaga soo afjareen hogaamiyaha mucaaradka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro isna kamid ah dadyowga baraha bulshada kaga dareen celiyay sawirkan waxa uu isna yiri inaad saamajiidiyo sanqaltirasho kala daa hadalkaasi oo macnihiisu noqonayo in madaxda Soomaaliya marna aaydan marna la kulantaan kala daaya garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac oo Hargeysa ku sugan waxa uu isna ka yiri xisbiga wadani xaal ayaan ka siiyay berigii aanu ku qabsanay sawirka farmaajo nabar gardaro Allah idinka dhigo farxiyo oo iyana kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boorame waxa ay barteeda Facebook ku soo qortay shacabka kolba siday doonaan ayay ugu sheegayaan laakiin madaxda Soomaaliyeed warkoodu iyaga waa cad yahay Sheekh Dr. Cabdiqani Badar oo kamid ah culimada Hargeysa waxa uu isna sawirkan kaga dareen celiyay sawirkan quruxda badan ee dhulkii barakaysnaa lagu galay qiimo yar laguma bedelan wali waxaan isweydiinayaa talo waxa madaxda Somaliland ku bedelatay waa maxay maqafilkii ayaa la idinka jabiyay qoraaga weyne Maxamed Baaji Xaaji Xasan oo isna ka hadlay ayaa yidhi hadal suugaaneed u dhignaa horu orod faarax horweynta jiciirtay hadhaaga u jooji hadalkaasi oo macnihiisu u muuqdo xaaji dadkii baad ka tagtee yara sug shacabku ha ku soo gaadhe siyaasi Xamse Khayre oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan Hargeysa ayaa aragtidiisa ku dhiibtay bartiisa Facebook waxa uuna yidhi ninkii wasiir Cawad hadii uu mar kale hadalkii gini ku cesho odaygeenu awliyu noqon lahaa mar kale hadii adhigii iyo deeqihii laynaga xidho muqdisho ayay iska dhiibi sawtiila lahaa waa rag adag wasiirka maaliyadda dawladda federaalka oo kulankaasi Biixi ay ku weheliyeen wasiirka qaarajiga iyo wasiirka kalluumaysiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qiimaha kulankani ummadnimada dib u heshiisiinta iyo midnimada Soomaaliya uu leeyahay
waxauna kaga dareen celiyay wasiir Bayle fariimahan uu ku baahiyay bartiisa Twitterka iyo Facebook. kulankan oo ku soo beegmay xilli dadweynaha Soomaaliland isweydiinayaan sababta iyo cidda ay u afduuban yihiin ayaa waxa ka soo dhex baxday inay jiraan ujeedooyin iyo dara gaar ah oo danta ummadnimo loo afduubtay. waxa kaloo kulankani dibadda keenay in korneeladu dantooda u arkaan go'doominta shacabka Soomaaliland. waxa iyana maragmado noqotay inay dhaceen dulmi iyo xadgudubyo laga galay doonista dadka rayidka, taasi oo dadweynaha aragtiyadooda dhiibanaya ay dib isu xasuusinayaan wiilashii iyo hablihii Hargeysa loogu xidhay madaxda Soomaaliya sawirradii ay la galeen, kuwii Hargeysa looga masaafuriyay xamar baa tagteen, kuwii doonistooda midnimo loo cadibay iyo kuwii loo ciqaabay hebel baad la kulanteenba. dhanka kale kolka aan ka soo istaagno kulanka sawirradiisu dareenka dhaliyeen, wuxuu markii u horeysay daaha ka fayday jiritaanka xooggan iyo doonista shacabka Soomaaliland ee ku wajahan dhinaca midnimada. ugu dambayn waxaa guriga ugu weyn guryaha Ilaahay lagu caabudo waa xaramkee lagu soo afmeeray qiiradii 30 jirsatay. waxaa gunta laga jaray geedkii nacaybka lagu soo waraabinayay muddada badan. waxaan jiri doonin iyana xamar maagisteedii iyo caydii madaxda Soomaaliya oon shacabku cid dambe ka dhagaysan doonin. sidoo kale isu bahalagelintii Soomaalinimada ayaa iyana burtay. hadalka wasiir Bayle kulankaasi kadib ku baahiyay bartiisa Twitterka iyo Facebook, wuxuu isna dhayda ka cadeeyay wixii laga wada hadlay oo dhagu heshiisiintu kow ka tahay midnimada dib u yegleelideeduna weel u tahay.